Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta daahfuray hay'adda tayo-dhawrka Soomaaliyeed oo ka shaqayn doonta hubinta tayada ilaalinta badeecadaha iyo cuntooyinka dalka soo gala, kaasoo ay soo diyaarisay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tilmaamay muhiimadda ay u leedahay hay'addani bulshada, taasoo mas'uul ka ah dejinta siyaasadaha, dhaqangelinta sharciyada iyo habraacyada lagu hubinayo badqabka iyo tayada caafimaadka ee cuntooyinka iyo badeecadaha. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa Wasaaradda Ganacsiga ku bogaadiyay shaqada adag ee hirgelinta hay'adda tayo-dhawrka Soomaaliyeed, isagoo xusay in ay ka tarjumayso kartida iyo dadaallada miro-dhalka ah ee lagu tallaabsaday. Maanta farxad weyn ayay ii tahay inaan idin daahfuro halbeegyada tayo-dhawrka. Sida aad la socotaan, dalkeena muddo laga joogo 30 sano muusan haysan halbeeg lagu kontrolo tayo-dhawrka badeecadaha iyo wax soo gelinta dalkan. Dalkeena muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu noqday meel lagu soo guro waxyaabaha dhaco, haddii ahaan lahayd cuntada, haddii ahaan lahayd shidaalka, haddii ahaan lahayd daawada. Laakiin maantay oo ay taariikhdu tahay 27 bisha March waxaan haysanaa halbeegyo lagu kontrolo dhammaan waxyaabahaas aan u baahannahay in tayadoodii la kontrolo. Runtii waxaan u bogaadinayaa Wasaaradda Ganacsiga iyo hay'adda tayo-dhawrka waajibkii, dadaalkii iyo kartidii ay iska saareen sidii ay u soo bandhigi lahaayeen halbeegyadan maanta hortiina yaallo oo ugu horeeyo halbeegan aan gacanta ku hayo. Dhowr halbeegna dhinacyadayda ayay yaalaan. Waxaan rabaa sidoo kale wasaaradda maaliyadda, wasaaradda dekedaha dhammaan inay u hoggaansamaan awaamirtan oo maanta aan haysanno halbeegyadii lagu kontroli lahaa dhammaan waxyaabaha dalka soo galaya tayadooda. Ganacsatada Soomaaliyeed walaalayaal, anigoo mas'uul ka ah shacabka Soomaaliyeed, waxaan idinku boorinayaa, idinka codsanayaa, idin xasuusinayaa inaad raacdaan halbeegyada tayo-dhawrka. Waad ogtihiin waxa aad dalka keenaysaan in loo baahan yahay in la iska kontrolo. U hoggaansama idinkana mid adduunyo iyo mid aakhira aad ka helaysaan inaad u hoggaansataan awaamirtan loo marayo halbeegyada tayo-dhawrka. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay ka feejignaada. waxa aan ka hadlayo waa nafsadiina, maaha nafsadeyda kaliya. Nafsadiina, tan waalidkiina, tan caruurtiina, tan reerihiina dhammaan waajib ayaa idinka saaran inaad u hoggaansantaan oo aad u taxadartaan oo aad la shaqaysaan hay'addan tayo-dhawrka Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin. Axmed Al-Xasiis Saciid, Somali Official TV, magaalada Boosaaso. hadda waan jimicsadaa caafimaadka. charger ma haysaa? حاجو تيار السكول كي ما بقيسي هاي شارجر ما يسا شارجر ما يسا شارجر عزومة دي بنشوف عزومة دي سوق الو شارجر ما يسان ونيو maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa, chargerna waad na weydiinaysaa. aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega Muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya. waxaad isticmaali kartaa adeega Muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya. hadal oo hadaalin.